بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وذا برنامج كنا عاوة حنكاد لنا حنونك روماتيزمك حنونك ضد فربنا سامية وملايين صوّد كنا برشة سومالينا كوبدن روماتيزمكو والنوع كوبدن أرتريتيسكا وصوّو نظامك دفاع جدكينا دفاعي جدكينا أيا سي قلدن وويررة جدكيني una burburiya ama u dhaawaca laabatooyinka xanuunkana had iyo jeer wuxuu ku dhacaa laabatooyinka xanuunkani waa xanuun soo jiitama waqti buu qaataa inuu sameysmo uu soo jiitamo wuxuuna saameeyaa laabatooyinka yaryar ee gacmaha ama laabatooyinka addimada wuxuuna saameyn karaa laabato kasta ayuu saameyn karaa ama tii addimada rugaga miskahoo kale garbaha ayuu saameyn karaa waxa kale uu saameyn karaa xanuunkani indhaha uu saameyn karaa maqaarka uu saameyn karaa wadnuhu saameyn karaa samabku saameyn karaa qaybo kale badan oo jirka ka mid ah uu saameyn karaa laakiin waxaan ka hadlaynaa marka uu saameeyo laabatooyinka waxaan nidhi xanuunkani difaacii jirkeena ayaa si qaldan u weeraraya laabatadii uu ku dhacay ee faraha ama addimada ayuu saameysmayaa markuu sababo wuxuu weerarayaa unugyadii jirka wuxuu burburinaya ama dhaawacaya arjawdii laabatada laftiibuu burburinaya oo saameynaya kadib waxaa samaysmaya caabuq baa samaysmaya caabuqa kadib barar baa dhacaya waxaa hoos u dhacaya shaqadii laabatada aakhirka haddaan xanuunkan la daweyna wuxuu samaysmayaa in laabatadii ay isku soo dhacdo ilaa inta ay isku dhegeyso xanuunkana wuxuu leeyahay marxalado kala duwan ayuu leeyahay marxaladaha hore oo kale waxaa laga yaabaa inaan qof waxba aanu dareemin laakiin hadduu aan la daweyn wax badan ayuu qofku dareemaya oo ka cabanaya xanuun buu ka cabanaya waxyaabaha lagu arkan waxa kamid ah xanuun buu ka cabanaya hadee jeer wuxuu kaloo ka cabanaya qofku adayg ama qalafsanaan laabatada ah xilliga wuxuuna saameeyaa xilliga subaxdii oo kale ay aad u sareysaa qalafsanaantu ama adayga laabatadu subaxdii qof markuu kaco wuxuu dareemayaa xanuun wuxuu dareemayaa laabatadii baan kala saari karayn ama waxay u baahantay inuu gacantii kale ku caawiyo waxa kale oo xanuunkan lagu gartaayo kale oo hadee jeer dadku ka caawdaan calaamadaha kamid ah barar baa kamid ah qofkii oo daal dareemaya ama daciif oo kale iyo daal buu dareemaya waxyaabahaasna waxay kamid yihiin calaamadaha xanuunkani wuxuu saameeyaa markuu laabato ka saameeyo labada gacmoodba si isku mid ku saameeyo ama labada addinba si isku mid ah qayb qora kuma saameynayo xanuunkani wuxuu kale uu ku kala duwan yahay qofka si uu saameeya qofku si khafiif u saameyn karaa qofku si daran u saameyn karaa qofna qof laba mid ah xanuunkan romatismka haddii aan la daweyn ama dawo la siinin qofku aanu qaadan 80% in ka badan muddo 2 sano gudahood ah wuxuu weerari karaa uu burburin karaa uu dhaawici karaa arjawdii iyo laftiiba sidaas ayaana qofkii uu ku waayi karaa laabatadiisii xanuunkan maxaa sababa xanuunkan waxaa sababa macadda laakiin waxyaabahaas waxaa kamid ah ee aad ugu badan hidisidaha oo kale ama qaybta deegaanka oo kale qofkii tabaako ama sigaarka oo kale caba ama infection oo kalena uu sababi karaa xanuunkan romatismka hadii jeer faraha oo kale markuu dhaco qofka qaybaha dambe oo kale handuu xaaladda dambe xaalado kale waxaan inuu xaalada leeyahay xaaladaha qaar wuxuu sameysmaa in fariiqa qalloocsamaan farihii addimadii ku gacmo qofku qalqalloocsamaan oo kale ay gacmihii kala qalqalloocsamaan oo kale marka haddaba xanuunkan sidee lagu ogaan karaa xanuunka waxaa lagu ogaan karaa haddii adigu ku dhacdo aska shakido dhakhtar u tag ha baadho amadaha lagu garan karaa ama dhiig ku qaadi karaa ama raajisaa lagu saari karaa haddii aad iska shakido haddii aad isku aragto subaxii kale markaad soo kacdo ilaa aad adayg ama qalafsanaan muruqyada ah 3 daqiiqo ama 2 saacadood ama 3 saacadood maalintii oo dhan aad dareento iyo markaad meesho kulul qaadato shower kulul markaad qaadato aad fiicnaanayso ama markaad activity iyo wax qabato aad fiicnaanayso waxaa laga yaabaa inuu romatism yahay laakiin waxaa muhiim ah mar walba dhakhtarkaaga la xiriidho xanuunka sidoo lagu daaweeyaa xanuunkani wada daawo rasmi ah oo meesha ka saaraysa ma laha laakiin wuxuu leeyahay daawooyin kale oo aad u fara badan oo qofka ka caawinaya dawadii xanuunka
dawooyin loo siiyo caabuqa, dawooyin loo siiyo bararka, dawooyin loo siiyo shaqadii laabatadii iyo shaqadii si u fiicnaato kale, iyo in la ilaaliyo inaanu jirkii isweerarayay meesha laga joojiyo si aanu jirku isu sii weerarin. Haddii xanuunkan uu kugu dhaco oo marka u horeysaba hore lagu ogaado, dawo lagu bilaabo, xanuunkaasi si fiican baa loo maamuli karaa, loo xakameyn karaa. Laakiin haddaanad la xiriirin dawo qaadan, waxaa laga yaabaa inuu si dhaqso ah u saameeyo laabatooyinka kuna dhaawaco. Haddii aan la daaweynin, waxaa laga yaabaa inuu gacmihii ku qalloocsamaan oo kale, inuu laabatadii oo ay u baahato camaliyad in lagu suubiyo oo lagaa bedelo laabatadii. Haddii kala bedelkuna macquul noqon, waxaa laga yaabaa in laabatadii labadii lafood inta laabatadii meesha laga saaro, labadii lafood dib laiskugu xidho si ay laabatadii meesha ugu baxdo. waxyaabahaas oo dhan waa camaliyaadka loo suubiyo qofka had iyo jeer aan xilliga hore dawo qaadan oo kale ee kadib. laakiin waxaa muhiim ah inaad mar kasta dhakhtarkaaga la xidhiidho si uu kuu siiyo dawada ku habboon, kulana taliyo. waxaana muhiim ah inaad miisaanka iska yarayso, sigaarka iska daysiyo, tabaakada iyo waxyaabaha, waayo waxaas waxay qayb qaataan inay kugu sababaan rheumatism oo kale. aadna u mahadsantihiin. fadlan sina share garee videoga si qof kale uga faa'iidaysto.